بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka ee doctor Minow Dabiib yahay. Caawa waxaynu ka hadlaynaa daaweynta dhiigkarka. Hore ayaynu uga soo hadalnay dhiigkarka waxa uu yahay iyo sida lagu ogaado. Caawa waxaynu ka hadlaynaa daaweynta. Qofka marka lagu sheego ama lagu caddeeyo inuu dhiigkar qabo, waxaa la gudboon inuu ku dadaalo sidii wax uga qaban lahaa. Talooyinka takhaatiirta ay siinayaanna uu ku dhaqmo. Marka ay gaarto heer qofka uu u baahan yahay in la daaweeyo, waxay noqon kartaa in qofka hal daawo la siiyo ama 2 daawo ama 3 daawo. Marba waxay ku xiran tahay heerka dhiigga uu yahay iyo qofka cudurrada kale haysta. Haddii qofka wadne xanuun uu jiro, cudurka sokorta uu qabo, si zaa'id ah ayaa markaa ay noqonaysaa in loo daaweeyo. Ama xataa haddii uu la socdo dufanka qofka inuu kacsan yahay, kolestaroolka kale oo kacsan, markaa waxay keenaysaa uu ka duwan yahay in sidii loo daaweyn lahaa qof dhiigkar kaliya qaba. Marka bal inta kuwan kale aan ku wareeri lahayn aan dhiigkar kale ku ekaan caawo. Qof dhiigkar qaba sidee ayuu dhiigkarkiisa ula dhaqmayaa. Talaabada koowaad, qofka inuu socod badan sameeyo, in jirkiisa uu ka shaqeeyo, in culayskiisa uu yareeyo ayaa qofka la gudboon. Inuu iska ilaaliyo waxyaabaha cusbada badan ay ku jiraan, cuntooyinka maqaayadaha degdega loo sameeyo cuntadooda oo cusbo zaa'id ay ku jirto, inuu qofka ka fogaado intii suurtagal ah ayaa habboon. Marka qaybta daawada markay noqotana, daawada dhakhtarkii uu qorayna inuu isticmaalo. Marka qofka lala taliyo oo la yiraahdo daawo hebel ayaan ku qornay ama aan ku qoray oo qofka qaato, waxaa dhici karta qofka in daawadii uu adkeysan waayo ama uu xamili waayo. Marka qofka maxaa la gudboon inuu sameeyo? Yuu la tashanayaa haddii marka daawadii daawadan waxay tahay xataa siday u shaqeyso inuu ogaado, dhibka ay keeni karto, yuu kala tashanayaa. Way iska caddahay jawaabtu waa inuu la tashtaa takhaatiirtii ama dhakhtarkii u soo qoray. Haddii marka qofka daawada loo qoray ay dhib u keento ama uu dareemo, inuu u sheego. Marka dhibka inuusan qarsanin oo dad kale uusan talo ka raadinin. Dhakhtarkii aqoonta u lahaa inuu ku noqdo oo uu u sheego waxyaabaha uu ku arkay daawadaas. Marka daawooyinku way badan yihiin. Daawo walbana waxay wadataa dhibaatooyin ayay wadan kartaa. Marka mar walbana waxaa la fiiriyaa daawada marka qofka loo qorayo, faa'iidada daawada ay leedahay iyo khasaarada ay keeni karto ayaa la isku miisaamayaa. Haddii faa'iidada ay badan tahay oo khasaaraha uu yar yahay, qofka markaa uu isticmaalaya daawadii. Waxaan aqsantahay saawaade. Bas. Barnaamijkan ay ka qayb qaadataan barabe. Dadkana aan la talano. Bismillah. Maxaa dhacay birmad? Raallah. Wararkaaga dhaqo. Bismillah. Okay. Gacmeeyaan ka cashti. Marka qofka raallah anay birmad ayaa xoogaa sheeko noo socotay. Marka qofka uu arko daawada uu qaadanayo ama xataa haddii dhib aynan keenin, inuu mar walba dhakhtarkiisii uu la tashto. Haddii uu yiraahdo asxaabtaydii kale ayaan kala tashanayaa, qof uu yaqaano uu ku yiraahdo daawooyinkan iska daa ay ku qorayaan takhaatiirta, waxay ku keenaysaa in kaliyaha ay ka turto, inay dhibaato ku geyso, inaad u barato ay keenaysaa. Daawadii ayaa u baranaysaa. Marka waa inaad iska daysaa.
marka waa taas waa tala xumana maaragtay ma fiicna in la qaato. haddaad u baahan tahay oo dhiiggaadu kacsan yahay waad qaadanaysaa. waxaa dhici karta in noloshaada oo dhan inaad qaadatid, marka waa u baratay iyo uma baran iyo meesha ma taalo. marka qofka aqoonta u leh oo waxaan soo bartay ayaa wanaagsan in la weydiiyo. aniga waan arkay dad badan oo ka hadlaya oo dhahaya maaragtay daawadan hebel baan la tashtay wuxuuna ugu yiraahday in daawadan haddaa isticmaasho inay keenayso keliyaha ayay ku tiraysaa. tusaale ahaan waxyaabaha ayay aada uga baqaan Soomaalida. marka haddii qofka dhiiggiisa uu kacsan yahay oo aanu daawo qaadan oo iska kacsanaado, marka ayay keliyihii hoos u dhacayaan, shaqadoodii ay baabaysaa. keliyihii markaas ayaa maaragtay jirkii ay noqonayaan kuwa howlgab ah oo qofka markaa u baahan karo, markii keliyihii ururaan ay soo yaraadaan, in qofka u baahan karo in dhiigga laga sifeeyo. marka inta taa aynan dhicin, marka in waxaa wanaagsan dhiigga la dejiyo. sidee lagu dejin karaa? talooyinkii daktarka inuu qaato. daawadii waa loo qoray, wuu ku xanuunsaday, wuu xamili waaye, dad kale yuu la tashanin. dad kale oo aan aqoon u lahayn yayn maran habaabin. ha ku noqdo daktaradiisii ama daktarkiisii ama kalkaaliyaha, dib ha ugu noqdo. marka waxaa loo sheegayaa haddii dhib uu jiro, daawo kale, daawadan waxaabay igu samaysay, waa u adkeysan waaye, madax xanuun zaa'id baan ku arkay, wareer baan ku arkay, lugihii baa i bararay, waxay noqotaba. qofka hadduu xamili waayo waa in uu dhibkii uusan qarsanin oo dad kale oo aan aqoon u lahayn uusan u tegin. dhaqaatiirtii ha ku noqdo, ha u sheego dhibka jira. marka daawooyinku way badan yihiin, waxaa lala fiirinayaa daawo kale oo markaa loogu bedelayo tii hore oo uu ka cabanayay. marka taladu marka waxay tahay qofkii aqoonta u lahaa ku noqo, la tasho, soo bartay oo waqti soo geliyay. laakiin qof aan aqoon u lahayn oo cilmi dhagood kaliya isticmaalayo yuu ku marin habaabin. marka talo kuguma noole, adaa ku nool. marka daawadii dhiigkarka waa hal ugama hadlayno, laakiin wayna badan yihiin sidaan sheegay. marka haddii mid ay ku dhibto, daktarkaagii ku noqo oo la tasho. haddaad diido daawadii, aad tirahdo daawadan oo aad raacdo talooyinkii dad kale ay ku siinayeen oo aan aqoonta u lahayn ay ku yiraahdaan keliya kusoo tiraysaa, waxay keenaysaa in dhiiggii aan la daaweynin oo kacsan, markaa in keliyaha lagu soo maaragtay jirkaaga dhiigkarka soo tuuro oo keliyihii ay shaqadoodii qaban waayaan. marka intay taa dhicin, intay balaayo kusoo gaarin, waa la iska moosaa. ilaahay wuxuu yidhi dadaal anna waan kula jiraa. marka daawada adigoo la tashanayso dhaqaatiirtaada, daawada dadka aqoonta u lahaa adoo la tashanayso, markaa qaado. intaa ayaanu maanta ku joojinaynaa. sheekadii Birmad ayaan dib ugu noqonayaa insha Allah. waa caawa iyada ayaan igala qayb qaadatay barnaamijka. waxay idin leedahay ku dadaala daawooyinka. qofkii maaragtay mukulaal haysto kale, mukulaalahoo kale xataa waxaa laga yaabaa marka qofka uu la joogo in ay dejiso. waxaa jira xayawaanka in qofka caafimaadkiisa, qofka markuu la nool yahay mukulaalahoo kale ay ku imaanayaan culayska ku hayay inay kaa dejiyaan. marka iyada xataa waxaan dhihi lahaa inay ka mid tahay qayb ka mid ah maskaxda caafimaadkeeda inuu dego ayay ka mid tahay. oo maaragtay xayawaankan nala nool in iyagana loo naxariisto, iyagana way maaragtay in lagu naxariista ka hadlay anoo ay qaninaysaa waa iska. laakiin cayaarteeda taas ka mid ah yaan laga baqin, waxba ma aha. marka in loo naxariisto, iyagana maaragtay markay isku xoqayaan ku imaanayaan, maskaxdaada ayay ku dejinayaan, caafimaadna ayay ku siinayaan. wixii xasharaad ah iyo dhibaatooyinka kale, doolina guriga ma imaan karo meeshii mukulaasha joogto. waa kaa. marka intii barnaamij kale aynu ku kulmayno ee Dr. Minow dabiib yahay, sidaa iyo nabadgelyo. wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Birmad
هلو برمات برمات اوه برمات حنقصنتها لا يا بس مع السلامة يا اوكي برمت اوكي برمت قاعد جمعة كويس عاو يا اوكي وياه السلام عليكم Yeah.